okay waxa dhacday waxaan ahayn laba gabdhood oo walaala ah iyo hal wiil way ku soo hooyadii celinaysaa gaas hadhow way ku soo celinaysaa laba gabdhood oo walaala ah iyo hal wiil baan haya ahay haya aniga sheergareeya laakiin shashada dhibaato iska ka haysatay oo ah inaan maaragtay hooyadii may caruur badan may dhalin so haya aniga ugu weyn reerka marka waxaan qabay xanuun thyroid qofkii garanaya thyroid baan qabay waa thyroidkaas dhuunta ay bararta ilaa dhegta ilaa halkan baa isla kay bararta hooyadiina mayna haysanin lacag ay ugu daweyso waa hooyadii waxay samaysaa xaafadaha dharka u maydhaa u tagtaa marba guriba dhar kasoo maydhaa aabahayna wuxuu ka yahay seylad wuxuu ka yahay dilaal waa love you too gaas waa marka aniga maxaan ku nacay markaan tago iskuulka tago ama aan tago maaragtay meelaha wax lagu barta aan tago sida malcaamadoo kale way caayaan waa ciyaalku waa way caayaan marka i caayaan ana waan xanaaqayaa ama qoortii bay iga riixayaan oo ana ibararsan waa iska daayay marka waxaan go-aansada inaan guriga iska joogo waa hooyo waxaan ku hooyo ciyaalku way caayaan dhuuntani bararsan bay igu caynayaan hooyo ma tagayo madrasada uqdad baan ka qaaday hooyadii waxay igu tiri hooyo waxbaan kuu sheegayaa kaale soo fadhiiso bini aadanka lama dhageysto aniga waxay igu waa yidhaahdaan wax walba diracayga jexjeexan bay igu caayaan kabahaygaasay igu caayaan nolosheedoo dhan bay igu aflagaadeeyaan laakiin anigu uma nooli bini aadanoo haddaan banaanka haystagon hadda naagta kelmada tiraaba aan la dagaalo horumarna kama ah gaadhiyo shaqadii aan tegayna waan ka daahayaa marka hooyo waxaa la yidhi banaankiisa maradiisa xanaan ma qabsada ama yacni qodaxyo ma qabsado ma muddo hala hadlin markaad u jawaabi weydo ad la hadli weydo qofka bini aadanka isagaa iska xishoonaya ku daynaya caruurta macalinkana hoos ugu sheeg waxaa tirahdaa macalinow saasay leeyihiin ama iska xidho bay igu tiri xijaab yar iska xidho oo qoorta ku qaso waa marka maadaama dhocolaha meesha jooga keligood iska wada maaragtay timo u daban yihiin anigana waan yaraa ma daban jirin timaha dugsi qur-aanka fiican oo maaragtay aada ugu fiicnaa haya waxa dhacday in aan aan keenaa mar walba dadkoo dhan baa isaka jecel waan iska furfura xijaabka waxay igu qariyeen ku huuri bay igu odhan jireen waa uma jawaabo hadalkiibaa iga batay maalintii dambe reer taajiriinahoo reer lacag haysta oo maaragtay nin dowladda ku jira wiil yar uu dhalay baa aada ii daba dhigtay wiilkii intaan qabtay ah oon sabaaxad dhulka kaga soo kiciyey oon ku dul fadhiistay oon maaragtay buuryada yareed ka qabtoon ka maroojiyey oon xiniyaha meel kasta ka qabtay oon beerka ka garaacay oon rifaan wejiga ka xagtay wix ciil iga hayay halka sana lay caynayay baan wiilkii yaraa ka jaray miskiin waa wiilkii markaan ka jaray wiilkii waa jaqaaq naftiisa oo haysaa gurigoodii tegay hooyadii waxaa nagu soo duulay hooyadeed wiilka hooyadii walaalihii habaryartii faamilkii oo dhan baa nagu soo duulay hooyaday 2 naagood baa dilay anigii waa lay dilay waana la wada garaacay waxaan ku ori gurigeygina waxay geliyeen aqal Soomaali baan deganeen dab bay geliyeen waa hooyada wayna kaxaysay waxay noo geysay ay laafiyto walaalo dawladda hoose noo geysay hooyaday waxay tahay gurigaan laga gubay waa kan waxaan lagu yiri qoladii dawladda waxayna ku raadeen dhulka ma idinka lahaa markaasaan ku niri ma dhulka ma aan lahayn dhulka dawladda iska haydo aabahay siisay oo reerkii dhulka lahaaba dawladda dhulka siisay iskale waxay dhahan dhulka dawladda iskale way dhisanaysaa bagaaba la idiin sheegay waa la idiin sheegi rabay socda waxbana lagoma qaban reerkii waa marka waxna lagoma qaban dawladdii waxna lagoma soo celin hooyada jug baa wada gaadhay madowda ani waa la dilay kulliga waa la dilay qofna waxba noogama qabanin waa wixii waa la isku maqraat furay maxkamadii kan tuur anagina maxkamadda waxaan ku tagnaa ma haysano shashada garaac 5 daqiiqo waa shaashada inoo garaaca bilis asxaabay gaba maxaan ku dhahaa waa sheeko adag oo maaragtay Soomaalida cadaalad inay ka shaqeeyeen inta badan oo maaragtay meel kasta ay yacni ay tahay garasho ay tahay maaragtay qofku ka qabiil maaragtay dadkuus ay kaga jiraan dawladda inayna cadaalad jirin ayay kaaga sheekeynaysaa qisadan waxyaalo badan waad maqli doontaan calool xanuuna inoo garaac shaashada waxa dhacday aabahay wuxuu ka yimid wuu yimid guriga ololay aabahay wuu arkay hooyo waxay tiri inakeen waan is wada raacnay intayadii waxaanu tagnay hooyadii gabdhaha habroodaag yihiin waxay tiri maqsinka karada anaa idinka bixinay hal maqsin iska dega maxaan ku dhahdaayay maalintiina
sida maaragtay khamiista oo kale noo imow dharka noo dhaq bay ku tiri hooyaday hadda waa ilma adeer bay yihiin ogow waay dharka noo dhaq bay ku tiri hooyaday waay gacmaheedu waa 2 kalar hooyaday kalarka hore gacanta kore waa cadaan si dhar u meedhaysay kalarka kalena waa madow haye maanta dhan si dhar u meedhaysay hooyaday cidiyaheedii waxaan ku idhi eber korkeedu waa eber hooyaday waxaan xasuustaa waxay haysatay 3 dirac oo waxay haysatay shiida ay ku kala bedelatay hooyaday haysatay iyo kabada casay hooyaday haysatay iyo masarka timaha lagu xidho iyo 2 shalmadood dhar ma haysanin anaga hudheerkii nooga soo adeegi jirtay hooyaday haye waxay ku aragto hudheerka marka toobab ku aragto waxyaalo fiican ku aragto hooyaday hudheerkaasi nooga soo adeegtaa waan cunaa waan cabnaa malcaamadii xafidii ka tagnay malcaamad kale cusub baa laga qoray malcaamadii waxaa dhigan jiray ciyaal aad u fiican aniga quraankii markaan aan gaadhay ma aragtay aan juska 9aad gaadhay quraanka waa iskaga baxay waan ka baxay waxaan ku hooyi macaan adaan ku caawinaya intaad maartay aad guriga ka maqantay gurigaan hagaajin dharka marka dadka uma dhawan ku warwari hooyada waxay ku tiri maya iskuulkaaga dhamayso waxbarashadaada dhamayso saad horumar u gaadho laakiin aniga dharna ii warwari maysid waxna ii qaban maysid waxay ku tiri waxbarashadaada dhamayso walaalahayga kalena iskuulka ay dhigtaan aabahay sidii buu nagu shaqay aabahay waa nin aad u fiican weligii iyaalin nagama tegin saylada wuxuu dilaal ka keen maalintuu soo waayay inuu soo waayay xidha aan idin fura guys commentigan idin fura 100 kun xidha waay inoo xidha please 100 kun waxa dhacday inuu aab maartay meel lama fiiri aabahay saylada ka yimaado hadduu maanta xoolo fiican wax soo dilaalay intuu helayba hooyo u keenaa hooyo maxay samaysaa subaxii marka canjeerada noo dubto qadada noo karsay noo daboosho ayay tagtaa marka hooyo marka anagu albaabka waxaanu leenahay meel xarig yar dhag laga siiyaa leenahay oo iska furno waxa dhacday inaan sidii ku waaweynaanay aabahay Allah yarxam raaximin wuu dhintay markaa soo weynaan waxa isku soo harnay 3 iyadii iyo hooyo isku soo harnay wiilkaygii weynaa wuxuu noqday ma ahayn waxbarasho kuma fiicneen wuxuu noqday kuwan maartay gaariyada banjariya banjar loo noqday halkaas oo ka shaqeeya banjar loo noqday anigii iskuulkii waan dhameeyay waxa dawladda ayaa waxay bixisaa jaamacad bilaash oo agoonta lagu caawiyo hooyaday wax badan bay dadaashay maalintii aan weynaaday hooyaday lacag fiican suuqa i geysay goonooyin bay ii soo tashay waxay ku tahay waad weynaatay dhar xuna wasakh ma jiro labiso goonooyin bay soo tashay xijaab qurux badan buugaag qurux badan hooyaday maasha Allah aad ay la soo dadaashay ilaahay jannatul firdaws ha geeyo maasha Allah Allah xisoo hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan amiin intii dhimatay Allah u naxariisto hooyo waxay ila dadaashay sidii kaaliska gabadh wax baratay baan noqday ani marka hamigaygu muxuu yahay inaan hooyaday aan meel ay hooy oo ay leedahay ay ka soo toosto inaan ninna guursanin aanan ma aragtay nin agmarin rafaadkii hooyaday tani anigu yar reer umay xaafadaha jaarka u shaqeyn jirtay magaaladan hooyaday laga yaqaan maanta shaqeeyad looga yaqaan hooyaday waxaan rabaa inaan horumar uga dhiso guri u dhiso waxaan rabaa hooyaday meel inay nasato inaan arko hooyaday oo qurux badan hooyaday oo lugaha aan ka haraqsanayn hooyaday oo maaragtay gacmaheeda aan qalqalafsanayn waxaan rabaa hooyaday oo qurux badan waxaan rabaa hooyaday aniga walaal iyo waxba igama gelin anigu hooyaday bas ayay muhiimadeedu tahay waan kaa qaado calaykum assalaam waxa dhacday ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu joogaa waana kun fayakuun waa qafuur raxiim waa samiicul basiir inaan jaamacadii soo dhameeyay soo qalin jabiyay oo noqday isug cuntaan ka bargay maasha Allah tabaar daacadii sacuudigan bilaabay waxa dhacday inaan ka helay shaqo xafiiska madaxweyne ku-xigeenkan shaqo ka helay war waxaan ku shaqadii markii la isiiyay waxaan kaga soo degi jiray markaan baska soo degay aan soo raac ama la soo dhaweeyo reer guri daara la agtoodan kaga soo degi jiray gaariga markay iga soo qaadaan waa taqaanaa wadankeena aad baa la soo qaada la soo caawiyaa halka waxaan kaga soo degaa guri daar ah oo qurux badan dhinaciisan kaga soo degaa waxaan iska dhigaa qof guriga daarta galaya laano haddaan kaga soo dega xaafadaan deganahay waa ood iyo bood iyo raf gaarigani ma gelayo anna waxaanay gabadh meel fiican shaqo ka heshay bishii u horeysan shaqada nimanka oo dhan ba ii hanweyn gabadh dheer dhex yar qurux badan waxaanahay edable ma ihi naag ragga lacatanta oo af dheer ma ihi
halkaas waxbarashada waxaan ku hay prefect ani computerkaasaan ku jeedaa ee wixii soo dhaca warqadihii soo dhaca gurigaasaan kaga soo agdegaa halkan wiil gaadhiga maaragtay darawal oo isoo kaxayn jiray inta ugu badan wuxuu arkay anoo guriga ka degay xagga iska firay guriga gadaashiisa la wareegay malaha dhowr maalin buu ii fiirsaday inta u badan waan iska soo raaci jiray bas markuu soo qaado ii fiirsay maanta wuxuu igu yidhi walaali su'aal baan ku weydiiyey maxaad gurigiina markaad gadagta gaadhiga ma gashida xagga dambe uga wareegataa waxaan ku baa erad daranta maxay ga fiirinaysa meeshan ka wareegaya adu haddaad eegaysa meeshan ka wareegayda marka horeba hay qaadin baan ku yidhi meeqaad baan kugu yidhi maxaa kaa galay meelahan ka wareeg wiilka uu yaabo wuxuu sarka xudhay inaan ka xumaa hadalkii arkay dib iguma soo qaaday shib afkiisaas ayuu 2 leera saartay waan iska baxaye Allahu musta'an bishii mushaarkii baa ii soo dhacay mushaarkii markuu ii soo dhacay baan hooyada u keenay kul hooyo maanta qabar xoogayga hadda dhamisid hooyada way farxay wax xasuustaa waxaan soo iibiyay dhar hooyaday waxaan soo iibiyay xijaab waxaan soo iibiyay kabo waxaan soo iibiyay kareemo cadar markaas socdo la jir kubra oo socda baan soo iibiyay hooyo waxaan soo iibiyay hooyo waxay jeceshahay waxaan ku hooyo maanta laga dambeeyo maanta mushaarkayga ma aragtaa biidni la qaladna sameyn maayo shaqada layga soo eriyo qofna maagi maayo markastan ilaahay baan tawakkaliyaan meesha ka baxo laana waxaan oran jiray ilaahu rabbi raxmaano bismillaah inni tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah markaan baxo wax walba waa ka xijaabiye marka ilaahay tawakkasho qofna waxba ka qaadmay shaqadan aad ku fiican tahay kan qofna aadan warka sheegin qofna waxba ku darsan xafiiska shaqada danahaaga warqadihii lagu dhiiba taad dirayso waxaad u sheegayso waxa soo dhaco danahaaga bisaad ka shaqayso waxaan sameeyay markaan hal sano shaqaynayay nin walba shukaansado waxaan ku dhahay walaal shukaansi uma jeedo nin walba shukaansado waxaan ku dhahay shukaansi uma jeedo nin walba maya bankigaan tagay lacag deynaan ka qaatay markaan lacag deynaan ka qaatay bankiga waxaan ku dhahay bil walba mushaarkii soo dhaco ayaan intaa bixinaya deyn baan ka qaatay waxa dhacday dhul yar oo maaragtay aan badnayn in yar laga dhisi karo dhulkii baan iibsaday dhulkii markaan iibsaday hal sano ayaan ku bixiyay lacagtii dhulkii markaan halkii sano lacagtii dhulkii ku bixiyay walaalkay ima caawinayo walaalkay kalena iskuul buuba dhigtaa kan ima caawinayo wuxuuba noqday maaragtay gabadh buu iska guursaday daniisu iska wataaba xataa wuxuu noo yimaadaba wuu yar tahayba gabadh maaragtay buu iska guursaday wuuba la degayba salaanta haddaan ka helnaba alxamdulilah waxa dhacday in uu walaalkay yidi maaragtay de anigana waa inaad biil noo qortaa walaal waad shaqaystaa baan ku biil kuma qorayo soo naftaada dabar anu hooyi ani maaragtay walaal bas mooyaane naftaada naga tagay markii hore shaqaysan noomaad waxba noomaa tarin haddana nagu tashaneen waxa dhacday inaan hufi haf intaan iri oon booday ayaa waxaan ku iri sanadkii markuu dhammaadaan bangiga taga waxaan ku iri may amahin kartaan lacag intii labadeed intii iyo in leeg ah oo 2 sano ku gud haabay dheen qof aamina lacagta waan bixiyay magta hore waxaan ku iri 2 qol oo ma aragtay blocketi ah dhagax ma goyn karin lacagtaan haystay 2 qol oo blocketi ah ayaan dhisanay iyo jiingad guriga lagu ooday iyo albaabkii bay noo goysay dhag maxaan ku iraaday islaan bakhaar weyn haysatay oo ma aragtay furaashiyada iyo sariiraha waxa iibsaan u tagay hooyo waxaan uga soo iibiyay sariir hooyadii waan ka muhiimada saaray bishii u horeysay hooyadan sariir uga soo iibiyay iyo firaash hooyadii baa nolosha hoose guriga ka dhis hooyadii sariir waa markii ugu horeysay hooyadii macaa aniga ay sariir ku seexato hooyadii farxadayda habeenka dhan hooyadii baan daawanay hooyadii oo naga sareysa sida ugu fadhida kor ugu jiifta sariir aniga walaashin firaash dhulka noo yaala oo hooyo la sheekaysanayna hooyo moogtay nolosha waa kow hooyo maaragtay qofkii haysta intay nooshahay hooyo cuntadeeda iyo nolosheeda ku dadaal hooyada intay nooshahay hooyada ka duceyso hooyada intay nooshahay farxadeeda ku dadaal wallahi maalintaad weeydo waxba uma tari kartid laakiin hooyada intay nooshahay waxaan ku wax walba u qabato laba laabkeedu ilaahay ku siinaya subxaanahu wa ta'ala wasaa u sheekayna hooyadii marka leer ma haysano leer maana soo gashan waxa noo shidan faynuus halkaas oo kale u yaala hooyo sheekaysanayna gacmaha iyaga marka faynuusku harka dhinac ka harka maarta darbigu qabanaya marka gacmaha taagtaagnaa hooyay waan ku jecelahay hooyaday macaan way kaftan badan tahay marka waxay tiri haye dhulka ka warma ka kacaysan idinkuna markaasaan ku hooyo haddaad noo jiifto adigu halka wallaahi alcadiim maanta waxaad moodamanari boqorkii iyo maaragtay shacabkiisii hor fadhiyo hooyo moogtay boqoradeeta adaan ku shaqeeya binaadan waxba igama gelin hooyaday waxay tiri hooyo adoo sir iyo saaq baan ku duceeyaa waan baxay
yaad isleedihiin Shakiro yay baratay yaad isleedihiin ninka Shakira ay baratay waa ayo kii dee dhaqankaada soo qaadi gurigii baan ka baxay gurigii baan ka baxay intaan guriga ka baxay ayaa waxaan isiri waxa igu dhacay qofkii garanaya waxa igu dhacay waxa la oran jiray afka labada gees ayaa waxa moodsidii nabar oo kale markaasaa la igu yiri vitamin E baad u baahan tahay adkaatay oon tegay ma aragtay farmasiiga ayaan vitamin yar oo la muudmuudsan jiro dhanaana karton yar lagu shubi jiray fitamiinka baan soo iibsaday fitamiinka anoo sii muudmuudsan iyo shaqadeedu sii socda baa waxaa ii istaagay gaari bajeero ah oo saa isu kala hay muusig hawada ka maraya muusigaasi berigaas uu socon jiray oo waxaan ku yiri heesta cajiiba berigaas socday bay ahaayeen markuu istaagay ayaa wuxuu yiri walaalan ku sii qaado markaasaan ku yiri markaan qaasimo itqaanida maxay saaray hore marka kaliya wax lagala baxaayay dad baa kaliya la dhoofiya bacda dad ku wada xidhnay ninkan isuu ii daba socday walaal ila hadal ha vitamin C bay ha walaal ila hadal kaalay nag xafiiska uma dari ka soo gashay anoo bahal kursiga xafiis ku fadhiyo waaba ninkii gaari ka dhex qaynay markaas wuxuu rabaan u dhadhameynayo ilaafiyeeto walaalo wuxuu rabaan u dhadhameynayo kaalis kaarago dadada nambarkayga wuxuu wada intaba socdo bini aadan baa tahay jir dameerna uu kugu jiraaye ninkii waxaan ka helay sidan yar ii daba ordayo ninkii nambarkayga baan siiyey waanu wada hadalnay waan sheekaysanay telefoon buu iisoo diraa anu markaan waxaan wataa telefoon yar baan haystaa telefoonkaas igala hadlaa bishii dambe sariiraan iibsanay marka anagu labada yar qolan dhisanay hal qol cidiba ma seexato saddexda yadii aniga walaalka iyo hooyadii hal qol baa naga badanba qolka wuu iska xidhan yahay qolkan xidhan waxa maanu dhiganba waxaan iska dhiganaa raashinka waxaan u baahan uu iska midhan yahay waxa ma yaalo jika yaroo maaragtay jika maanaan dhisan weli qurux badan jika yaroo aqal Soomaali oo cadceed laguma karsan karo cuntee hoosta ka faydan baan ku dhisanaa marka jinkada kor baa loo yar dheeray maadaama waxuun laga sheekay waxbaa buti iyo balaa iyo alles duba jinkada gurigeena kor bay u dheertahay hoosna waa laga qufulaa habeenkii waxaan xaafado badan waan ku dhex naalnaayo wada daara ah laakiin hadaan ka tagnay meeshii on meel aan leenahay aan deganay waa nicmad rabbi aadawen ninkan iga daba hadhi waa ninka markuu 6 bilood telefoon iisoo diray xabsi caashiq leeyahay yaa waad booqan mooye waad ku dhiciismaan odhan adkaat xabsi caashiq leeyahay waad booqan mooye waad ku dhiciismaan odhan waxa dhacday inaan dareemay waxoogaa inaan telefoonkiisa isla muxuu kuu soo wici waayey iyo hadduu isoo waca inaan durbe ka qabta iyo inaan messageka hore ugu jawaabo oo markuu saas daro dhilan inaan qoraalka hore ka dira iyo waxaan arkay inaan xaggiisii u batay iyo inaan hadalka ka dhageysto bariga hore wala murmi jiray hadal dhageysi baan bilaabay waxaan leeyahay anigu maxaa dhacay hadal dhageysi baan bilaabay iyo inaan u naxo aan ku dhaado oo shaqada maanta waad ku soo daaday wax ma cuntay waligay ma weydiinin wardeena dhaaf ka qaban mayna hadaan doonee telefoonka maanta iga mad qaban telefoonka soo aanu malihi jikaar buu waxa iga hor oo dhan jikaarki waxa ku xigtay telefoonka hadii aanba ka qabtaba inaan dhado walaal wax ma cuntay walaal seeta iyo waran maanta cadceed way kululayd walaalo waxaan bilaabay inaan wacalaykum asalaam walaal waxaan bilaabay inaan isbedelo tartiib anigu waan garan waayay hooyaday intaan salaad cishaa i tukanay ayay hooyaday BBC geysatay halkani waa BBC London ba hooyaday u shidan raadiyo yar halkan yaala anteena dheer markaas anteenada markay jeeq taraabi hooyaday anteenada hagaajisanaysaa waxaan ku yiri waxay aragtay hooyaday anoo heesaya abatul cimrigeena hooyaday anoo heesaya imayna maqal markaan salaada tukano nabi amaan ba isla qaadi jirnay hooyaday tusbax ana tusbax waan wardi jirnay wardigan ku tartami jirnay hooyaday ma gaarsiisay 500 kun migsaliga nabiga ma gaarsiisay ha kaayagarna iskuulka inta maanta ordayo cadceed orday isaga wada qorax abu seexday wacalaykum asalaam waaba sakaraad anagu waxay artay hooyaday heesay markaasay tir hooyo malayna soo galay bay tiri malayna soo galay ya istibad qaadaysi marka waxaan qaadayay
ya haystabaad qaadaysa marka waxaan qaadayay dhadhabkiyo indhahayo calooshaad dhex mirato cadowaad ku noqoto hawla aad ku curise kalgacay hilka ciidam cusleeyo ogsoonow anayaahanan ceebayn waleecir sigaygow calafiyo wad mooye waleecir sigaygow calafiyo wad mooye nin kaleba macaashaqo isbaranaa tuulaha roobka daayo cawa dhalaadinaa tahay cindigayga gaaliye adu lagama sheekeyn kara dee waxaan kuleeyahay kalgacaylkay biyo dhigay waxaa dhacday allahu mustacaan calaa maa yasifuun inaan ku yidhi hooyoy waxba kaa qarin maaye nin baa isbaranay baryahanba waa idaba ordayey hooyoy maxaaneeyi ninkan kabi baa ka dhammaaday hadda wax bish 7 bay ku jirtaa intaan la sheekeysanayo laakiin hadda waxaan dareemayaa waxoogaa rabitaana hooyadee way qasashay marka waxay itiri kaale waa marka waa caddo qofkii garanaya hooyadee saasay dhabar ugu seexatay markaasay ku tiri hooye xidigaha soo huraan tirinayna banaanku waad ogtay marka inta cawl la dhigto cirka wada iftiin waxay tiri hooyadee hooyo waxay iga sheekaysay markay aabahay isbaranayeen sida isku barteen jacaylka aabahay soo dhex maray aabahay inay baadiye iska soo guursadeen inuu aabahay usoo safriyey habeenbu aabahay wuxuu soo socday bay tiri aabaha yacni 3 habeen buu ani dartay usoo dhaxay soo aan iigu yimaado dhulba hala galayaan oo libaaxiyo wax walba leh aabaha wuu ii gabi jiray waan soo gabi jirnay aabaha wuu jeclaa gabayadii aabahay bay ii tirisay marka ii gabayday ii heestay waxa dhan iga sheekaysay ninkii waxaan sii dareemayaaba inaan kalgacayl iyo wanaag iyo waxyaalo badan galeen waxaan ku hooyo macaanay waxay igu tiri hooyo ninka waa ayo oo maxaan ku dhahday maad waraysateeno waa reeqan saxeeyo saan ku hooyo wallahi iga tahay inaanan odhaninba hooyadaa Soomaaliya ka tahay hooyo ma odhanin isna ima weydiinin waxay tiri waa iska ogaan doontaa waxaan ku idhi ninka wuxuu ii keenay hadiyad buu ii keenaa galab wal bibitu igeeyaa cabitaan kaloo shiidan wuxuu keenay inuu bilaabo inuu warqad intuu ku qoro loof falaarsa u dhexgeliya loofka inuu ii soo qoro waan ku jecelahay oo ana intaan warqad loof geliyo iyo il intaan sameeyo laba dhibic oo ilin oo ooyeysa aan saaro hoos aan ku qoro anaa kaa daran jacayl sacaynkaasaan bilowna jacayl caankaas waxay socdo maalin dambe wuxuu ku yidhi anu la'aanta ma noolaan karo waan kuu dhimanaya waxaan ku yidhi aniguna waan kasoo fikiraya isma jilcinaya waxaan ku yidhi naag is adkeyn waxay nagala dardaarantay araweelo waxaan ku yidhi maalin dambe anigana sidoo kale waxaan go'aansanay marka wuxuu igu yidhi waan shaqeeyaa aniga hadda wuxuu reerkaygaan kusoo baraya adna reerkaaga i bar waxaan ku yidhi waayahay baan ku yidhi wuxuu igu yidhi walaashay iyo hooyaday baan ku barayaa jabkaaguba hadduu bilaabanaya walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliy alcadiim yaa waxaan ku yidhi waxaad qaniini doontaa waxaad adoo yar jiijiiday laa xawla walaa quwata ilaa billah wuu i kaxeeye bahal taksi dheereeya ayuu isaaray la qaaday shakiilo la qaaday reerkii jacaylkaasi ma waari doonaa mise jacaylkaasi wuxuu noqonayaa jacayl aan midho dhalin bal soo qora waxaan ku yidhi waa lay kaxeeyey gurigii buu igey hooyadii islaantii nagu soo duushay hooyaday raftee guriga naga gubtay baa dhashay isaga ala ilaahay wejigii ninkii aan rifay jacaylkaasi uu guuleysanaya waa qosolka ma guuleysanayo jacaylkaasi waa oohinta islaantii dagaalka soo qaaday inanka dhashay iyo shaki jacaylkooda ma guuleysan doonaa waa qosolka ma guuleysanayo oohinta islaantii weeyaba ani ima garanayaan marka gabadh yaroo intaa la ego waxaan rifrifanoo waxaan ahaa kaale iska arag aniga tayroodki waan ka bogsaday kiniina qalajiyaa dhakhtar baa ii qoray faniga naag dheero jaamacad soo dhamayso v a b aban ahay islaantii oo weynaatay
oo waxaan reerka anu waan garanaya laakiin iyagu ma garanayaan gurigii anaga inaga gubtay daar waxaa laga dhisay cirkaa leeg reerkii waan gartay waan isu sheegay waxaan sheegtay markaa iyagu dee maba xasuustaan mareed inayaha maba xasuustaanba magac ma ogtahay waa xaaraan magaca aabaha ma bedeli karti laakiin magacaaga waad bedeli kartaa waxaan ku idhi waan isbarbaranayo barasho wanaagsan oo qolamaatiino qoladaas adna qoladaas haa maasha allah reer fiican Soomaali iska taqaanaayo wakaas aabaha muxuu ka shaqaa aabahay uu dhintay hooyadaa maxay ka shaqaysaa hooyaday ma shaqaysaa waa guri joog adu maxaad ka shaqaysaa waxaan ka shaqeeyaa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maasha allah gabadh wax baratay baa taad meesha ka shaqaysaa haa barasho wanaagsan wiilkaygu waa injineer oo bababa oo islaanta isbaranayo hadiyad yar oo bac ku jirta isoos hadiyada aan wata xaar way iga soo ur badan tahay islaantii hooyaday riftay may ku garanaysaa iyadu markaa ima garanayso waxaa dhacday gurigeygii markaan tagay hooyaday waxay ku tahay halka lagu soo barayo waan sheekaysanay bacdi ma halkaa ku tuuray hugugufaan bacdi ka sii hooyaday way aragtay inuu xanaaqsan ninka xataa markaan soo raacnay qosarkii farxadii madaxay xanuunaya baan ku dhiyo kiniin intuu ii soobiyey baarasitimool biyo guri kiniinkaan iska liqo halkaasaan iskaga tuuray xanaaqay haya maskaxdaas ay qiiqaysa baan ku qaracan ninka waxaan u hayaa jacaylkii cilmi iyo waxaan ku idhi cilmi boodhar way dhaaftay aniguba qadraan soo arkay qaararkii hodane qalbigu wax iga yeelayaa laabtan qaawaniyey inaan eebahay qariya laabtiin waxaan ku idhi kalgacayl baa yahay hooyo waxaan ku idhi hooyo islaantii ku rifteen iyadii walaasheed ku rifeen ayaa dhashay wiilkuna waa kii berigaan xiniyaa ka berariyey waa kii ambuurada ka tiijiiday waa la tegey oo kuma garanayo ima garani jimbu ahaa berigaas haddii uuba degaya waa xaaladaheediiba iska ilaahay meelaha ay jiijiiday shakiira laga jiijiiday waay ku soco waxaa dhacday hooyo waxay tiri acuudu bilaahi min ashaytaan rajiim ma reerkii barakacay inagu riday ma reerkii ina barakiciyey ee guriga inaga gubay ina hoojiyey waxaa la yidhi cagtii joogsan weydaa mar bay ceeb la kulantaaye carabkaan la laabani xumuu caasha geliyaaye ismabay lahaynba hooyo dee reerkii taa nagu dhigay qadar allah maasha yafcal baa noo iman doona waxay kusoo qortay kiyajijidabi qaniin oo weliba bash ku tahay waxaan ku idhi dismoral dilaac qaracan waxaan ku idhi xafiidka shaqadan tagay indhuwe bari maxaa kugu dhacay laygu yidhi waxaan ku idhi walaal madaxay xanuunayo madax xanuun baa haya markaasaa waxaan idhi waxay laygu yidhi gelinka dambe isfasax iska qaado iska tag guriga ku shaqee guriga maxaan ku shaqeeya koronto nooma taala maan dhihi karaa guriga koronto male masaan ku mee walaal waan iska joogaya kiniin baan laqayo bibi taakanaan tago macmacaan laan ka dalbaday iska soo cuno waa iska soo baxay gurigaan iska yimid marka shaqadii dhammaatay 12 telefoonka dhiidh dee guriga iga soo raadiyay meel daartii aan kaga soo agdegi maan kaga dagaa daartii muu garaacay daartii shakeera ma taqaan muu dabaq dhakan kaga agdagaa ninka ka baarmi waayay markaan is celceliyay waxoogaa hooyo waxaan ku ninka waan jeclahay maxaan sameeyaa hooyo ma aqaan ma noolaan karo si baan rafaadsanay hooyaday waxay tiri wagar bay tiri wagar qooqana wiil dhala maxaa tiri saani hooyo ninka waan jeclaa sayd tiri jacaylkaaba qalladay ku hooyaday weligaa markaas ay habaartay inta aan jiro وعليكم السلام قال لي كوكو دعوه بلاي كو جعلات ما تري نابل كو سوعل جعيل ما جعيله سيادو جعلان كرتا نينكي ilaahay waxaan idin ka bariyay bay tir hooyaday inuu ilaahay idin ku kala turo maqrib iyo maqshir labadiina balaaya ku jeclaantay ilaa hadda dhabarkii bay tir hooyaday meeshiisa ii garaacay maalinta la ii garaacay talabadan ilaa marka xasuusta doodka ay garaacan maxaa tiri saamarka tiri waxay waan kaaga soo argudi karaa salaam saddex waan rifi karaa naagi baan kaaga argudi karaa hooyo ha ogaadaan shal reerkii ku soo duulan inay guursadeen baba hooyaday waxay tiri wax ma ku sheegahaa نوصل هذا مسؤول كهوي waxay tiri hooyo way banta hooyada shanta gacanta shanta dhabarka ku haysa moogtahay marka wax weeyaan hooyada dadka maaragtay ku soo dhacaan kelmadaha maaragtay gabyo ee gaaraar way hooyada marka
هاي ما ترى xasuusto mar hore u ahaaye maanta waan soo dhargay hilib geel raalli ahaada alla maanta maxaan hilib geel cunay 12 xabo oo 1,2 lug baan cunay kowdhe hilibkeena xagaad ka keentay waa ku waa soco lagu iibiyaa halkan hilib geel baan hilib waxa dameer waa ahaana faaduma soo duushay waan ku garanayaa ku soco dadka masraaf way soo dhawo walaal waxa dhacday ninkii waxaan ku yiri walaal waxba kaama qarin karo inta ugu badan inta in ka badan kaama qarin karo waxaan u baahanahay inaan wada kulanno ee xagaan isku arki karnaa wuxuu igu yiri waxaa timaadaa meeshaasaan joogaa wixii jirana waan kuu sheegayaa baan ku yiri ninkani marka wuxuu kari laayay hooyada iige hooyaday haddaan u geey xaabay la soo dhacaysaa adkaas waxaan ku dhegeyso horta aniga may taqaanaa baan ku yiri maxaan hoos ku wataa ma idiin sheegaa yaa garanaya wagar wagar gaas yareede wagar baan wataa waxaan isleeyahay hadduu ku dhaho waa tii uu kugu soo boodo iska celi baan isleeyahay halkaasaan ku wataay inta waxaan ku dhegeyso maadi garanaysaa baan ku yiri markaasuu yidhi maxaan ku garan waaya jacaylkayga dhanaababata nolosheedii xataa gurigaan degi lahayn imika wax yar baa kaadho dhismi xataa uu dhammaaday buris camal wey oo afka kule meel dadka geli kara waxa dhacday waxaan ku yiri mataqaanaa gabadh hadda ka hor isla dhigan jirteen maaragtay dugsiga oo la odhan jiray shakiira oo aad shaakiro la odhan jiray oo intaad istagaasheen ay ku tuntaxeen iyaa gaajida ma garanaysaa iyadii baan ahay deeq intuu qoslay buu yiri ilaahayow haddaad tahay buu yiri guriga igu nabad celi maxaa dhaxban naa wax faal xuna waxay ahayd buu yiri duliyahoo luga jeexjeexano oo luqunta xataa ka bararsan shalmadii saasuu iga dhuftay mise qoorta wax meel naataa qoorta waa budyar weeyaan oo tib xawaashtoo kale oo madax buuran waa ku soco naataasi wax faal xuna waxay ahayd buuri qoortana ka bararsanoo wuxuu yidhi waan xaafadda dhammaan ka rarnayo naataa ilaahay kaama dhiga qumay ahayd buuri taasi baa faal xun bay ahayd naagtaadan dheer quruxda badan ee mutacallimada ka shaqeysa meesha naataa awowgeeda reer hilibgeel oo dhan baad waashade Sweden hilibgeel ma laga helaa taasi haya waa laga helaa qurux lagama helay weydin waali waa laga helaa dukaamada oo xagaa idinku keena hilibgeel Australia laga keenaa qalbi wuu yaalaa maaha hilibgeel baa yaala hilib dameer baa hilib faras baa yaala bilaayada meerayso hilib walba yaa walaa lug dameer xataa way taala hadda qaniye rabto kowde waxa dhacday taamatid buuri waxaan ku haday fool xumaan jirtay iyo haday qoor barsanaan jirtay iyo haday guriga intaad ka gubteen ee xaafadda ka guurto oo laan dheeranimo ugu faan waxa lacag ugu faanteenba iyadii baad maanta xab igu jirta xabsi caashaq leeyahay intuu baxay uu gaarigiisii galay hurruf wuu tagay meesha iga dhaqaaqay waxay u jirtaa suuqa haddaan usoo lugeeyo 20 daqiiqo lug ah bay u jirtaa laakiin xaafadda waxay ahayd moobeelada waa la iska qaataa moobeelka intaan dansaday malani hijaabada aan ku laabana mali hijaabada haddaad leedahay waad ku laabi kartaa sida sandwichka mogti hijaabada aan ku laabana mali maxaan ku dhahdaa moobeelkii adigu si un baan u farsameyey waan qarsaday waan iska soo lugeeyey wadada gaariga agteedaan socday haw bas male waxba male waxaan ku ilaahay nabadgel ilaahay santarkii baan imid santarkii markaan imidna baskii wuu go'ay baskii markuu go'ay xaafadeedii baan u lugeeyey waxaan tagay hooyaday oo irida taagan iridaan tagay guriga hooyo baan kuri ninka xaggaaba iiga soo tegay xaafadaasu iiga soo tegay intaan waan soo lugeeyey markaasay tiri maxaan ku idhi waxay tiri hooyo inuu ku guursanaynin oo cidlo kaaga tegay waan ogaa inaan kusoo qanciyaan doonayay waan xanuunsaday xanuunkii la odhanayay baa igu dhacay kor baan u kici waayey dhulka ila madoobaaday oo hin mooy wax kalaa layga ninkii baan rabaa adkaat telefoon baan u diraa ma qabto telefoon kalaan u diraa ma qabto waxaan ka wacaa santarka ma qabto qoraal baan u diraa ma iiga soo jawaabo wax walbaan sameeyey wax walba oo hintii la odhanayay
baa ii dhamaatay qof igu dhahdo maaragtay bahalka diisiga la yidhaha diisiga cab minaa tusbaxi baa iga dhacay sugaan soo qabsaday tusbaxayga maxaa riday bismillaahi waayaati qof yiraa diisi cab qof yiraa maxaan ku dhahdaye qasil cab qooq waxaan ku idhi qooq kulahaa balaaya kuu qooqday qof yiraahda maaragtay saas samee qof fasi buu yiraahdaa hooyada way artayna bestay ahay qorda xafiiska waxaan ku idhi hooyada baa iga xanuunsan gurigaan iska jooga 2 isbuuc nolosheedii waa isbedeshay waan baaba'ay eber baan noqday wax inaan gurigoodii tago oon ku soo baroorto in yar baa u jiraa adkaad hooyada iga dulooday hooyo macaani hadda maxaa la dhihi ummadda ilaahay hooyo ninbaad saa ugu ooyeysa weliga iyo allah aabaha oo hinan u ooyey iska daayay xataa qalbiga kalgacayl uguma qaban badan hooyadii halkan in balaayo dhurtaa waxaas iguma socdo waan qaracmay waxaan ku idhi markay kasoo wareegatay adigu 2 isbuuc iyo badh aan shaqadeedii ku noqday ninkii oo lalaya xafiiska soo galay xafiiska waa laga buuxaa waxaan ku xagga iyo xaggaba waa laga buuxa waa kaygu iri intuu saa ii fiiriyo bigu dhageyso waxaan kuu sheegayaa waxaan doonayaa inaan u sheego waxaa xafiiska jooga oo dhan dadka dhanba isoo fiiriyo waxa xafiiska jooga oo dhan waxaan u sheegayaa inaan ku jeclahay adkaad aanan kaa maarmin habeenku doonayo aan maalinku doonayo oon ku jeclahay oo inaan ku guursado aan rabo baa u sheegayaa hadda ay jeceshahay ma ogashahay intaan xagga fiiro xagga hoguguguf soo idhi baa waxaan ku idhi ka bax xafiiska baan ku idhi meeshan waa meel shaqo baan ku idhi meel jacayl waxaad ka sheekaysaa waxaan sugayay markay lahayd hurururuf soo tiri laabtii waan sii diyaari meeshan waa meel shaqaan ku idhi waa meel shaqaan ku idhi meel jacayl waxaa lala yimaada ma waa laga eri karaa walaalahay baan ka biishaa oo masaakiin ah waxba ma haysano so maadaama dad taa jirta adiga waxaan waxba kula ahayn aniga dambe yarata nolosheeda ku xidhan mar dambe shaqada ha imanin kana tag adaad iga qabanaysana caawaan isla hadlaynaa iska tag waan u soo noqon ku ninkan iska hadlay waalan yahay baan ku jecel meelaha la wareegaa markaan aniga jeclaana uu iga qaban waayay hadda wuxuu soo go'aansaday ma ogtahay ninku hadduu marku rabo wax walba hadduu dhaco wuu ku rabaa ninku hadduuna ku rabin ma fiirinaya si kastaad u rabto go-aankiisu gaadhay innaga dumar haddaan nahay qofkaa nacano kuma noqono laynaguma karo laakiin iyaga qofkii nacaan iyaga way hore usii baxaya xataa kaama naxayo ana hadda waa laga yaabaa inaan qof ixtiraamo iyo jecel oo ii dhimanaya inaan jacaylkiisa u tixgeliyo xataa si ii iloobo laakiin iyaga nin hadday naftu kaa dhacaysa xataa kuma tixgelinaya jacaylkaaga reer luga findhicil waa cajiib waxa dhacday inaan gurigeygii imid orodka waxaan isleeyahay alla shaqadu ma dhammaato saacadda eegma dhaqaaqdo dadka meesha jooga wadada is wada afgaranayno qoslaya amba nin baan jecelahay amba naag baan jecelahay isla sheekaysan dux qaraaxa naga dhacay meeshii waa soo tagnay gurigeygii baan imid ninkii baan telefoon u diray wuxuu igu waan ku jecelahay walaalo waan rabaa inaan ku guursado waxaan ku hooyaday ma ogolaanaysa walaalo hooyaday markaan u sheegay faamilkaaga inay faamiligii taa nagu dhigan yihiin guriga uga soo tagnay hooyaday wayba qaraacantaan idhi ma doonayso hooyaday wuxuu igu yiri ana hooyaday markaan u sheegay waxa igu tiri buu waxaad iga tahay bari dad guursato hooyadayna way diiday hooyadii waxay tiri maxaa u sheegaynaa dadka islaantii burushka la wareegi jirtay xaafadaha dharka u meedhi jirtay gabadheedii baan guursanaynaa maan odhanaynaa ha igu caabeynin bay ku tiri hooyadaa jaarkee dariska xaafadana kama guuri karo weligii iyo allahayna waan deganaa hooyadeedna xaafadaha dharka meedhi jirtay oo warwareegi jirtay tanna waa tii ku dishay orna dhaaf bay ku tiri way diiday islaantii hooyadayna way diiday carab maxaan go-aansanaa isku raacnay boolka soo tuur waan tashaday waxaan ku idhi dhegeyso go-aan soo qaada ana go-aan baan soo qaadanay waxaan ku idhi horta maxaad waxaan ku idhi aad igu talagashay lacala haddaan isguursano waxaan kugu talagalay intaasoo lacaga inaan arooskeena ku baxdo inta dahab kugu gado inaan intaasoo hibe ay kaa geeyo reerkaan hibada u geeyo iyo intaa waxaan qoondaynayaa inaan hooyo tukaan u furo waxaan ku idhi hooyo ninka hooyo ninkaa warkiisa oo ninka hooyo warkiisa iga daa de ninay hooyadayna rabin isagana hooyadii waxay tiri maya reerkaasi ima soo galan hooyad burushka la wareegi jirtay marka hooyo macaan adaa noloshaydii iyo dhegeyso waxbaan kuu sheegay hooyo macaan bangii baan lacag kasoo daysanayaa waxaan rabaa halkan dhisma ku bilow dukaan dhisma ku bilow qaybta maaragtay dhinacan iridda dhinaceeda kale dhisma ku bilow hal qoloo dhagaxa oo kaale iska araga laydh baan soo jiiday lacag markaa $3,000 dhan ayuu fartayga saaray
$3,000 waxa oo inaan wax ku samaysana oo ani isagu aan iskuursanay labadeena kaligeen 2,000 waxaan ku qarash gareeyay meeshii iyo lacagan soo deynsaday waxaan isku daray hal qol oo dhagax oo dukaan ah oo dhexdeena ka xidhay maaragtay meesha laga iibsanay kaasadii ka xidhay talaagad weyn cabitaan nooc walba oo dukaanka macal mashiinada wax lagu shiday leer baan soo jiidan guriga soo galiyay nar markaan wixii ka dhigay hooyaday dukaanka say ugu dhex faraxsanta islaamuhu u imanayaan sadaqada la baxayso shidan tahay ninka waxaan ku diyaar ma tahay haabi guud dharkii guriga yaalay waxaan rabaa inaan yar aan u baahnaa baan ka qaatay isaga waxaan ku waxaad lacag hayso ee reerka aad hayso inoo soo qaad ani isaga isla baxsan akaatay qoladii tiri isla baxsan maysaan idinku daadsan ani isaga waan isla baxsanay waxaan isla galnay qodda iyo waxaanu ka dhacnay ilal magafe baa iska dhiibnay waxa dhacday in magafaan iska dhiibnay lacagteeda waxaan soo dhiganay dahabshiil telefoon baan ka qaadanay adeer dhagna magafaan tagnay waxaan ku waanu ismehersanay ani isaga meher dhag waan baxnay waxaan ku iri duurka iyo waxaan rafaad sii marnaba ilaahay wuxuuna nabadgeeyay Trablis markaan tagnay badxidan bay ahayd badxidan markay ahayd waxaan iskala joognay magafaan iskala joognay hal qol baan la siiyay oo anaga aan kirada la baxaynay baan la siiyay halkii baan ku qaaday oor adkaatay waxaan ku iri markaan sidaa u imiday aan imid Liibiya hooyadii baan la hadlay hooyo baan ku iri intaan meel ka gaaray aan wax kaaga soo taro waxaad ku noolaato waan kaaga imid hooyo waxa dhacday in aan Allahumma musta'an ala ma yasifuun aan walacay hooyadii baan la hadlay ku hooyo macaan ninkii waan jeclaa waan isguursanay markaan tagay Ilaahay baan kaaga soo tagay waxaad ku noolaataan adduunku waxa la cunay waxa la cabiyo cibaadada Alle waan kaaga soo tagay hooyo meel aad seexato adigu leedahay waan kaaga soo tagay Ilaahay baan adiga walaalkay geer Ilaahay baa idinka soo tagay hooyo macaan haddana hooyo macaan halkaasaan jooga ii soo duco hooyo bad baan galaya hooyo macaan waxaan ku hooyo macaan iska sabay de marka hore ma lahayn wax kale tan sabay hooyaday sabtay barkan saartay barafkan saartay hooyo waxaan ku yiri waana baxay ii soo ducee nasla hadaad joogto soo qabsan nasla aad soo qabsan hadaad joogto 3 bilood aniga oo 3 bilood ayaan baxay waxaan saaray doontii baan soo raacay waxaan nimidnay sidaan Yurub ku soo galnay waxaan iska dhiibnay isaga Jarmal lacagtii ma gafiyaa idinka bixiyay lacagtii doonta anaga haysanay isaga noo hay ma waxaan ku iri Jarmal baa iska dhiibnay isaga uurkii waxaan ku dhalay gabadh baan ku dhalay gabadhii markaan dhalay ninkii magaalada markaan nimidnay wuxuu galay suuqiisa biyihii kululaacab maxaan ku dhahday wareeg iska daba dhac waxaan ku idhahday soo dah salaada subax imo salaad subax markuu yimaado chief maanta oo dhan sida meedka chief markuu soo kacaan cunto jikada si wax waalan u tag gab maxaa karsan maxaa yaala dam faruurtii hoos ha cadaata sida qof biijo ku dhacday faruurtii hoos markay cadaatay balanbalay anigu markii haddana walac kala noqday waxaan ku iri aniga walacaya oo waxaan ku iri sakaraad wax walba ii soo urayo ayuu waxba ima caawinayo tayar ma soo qaadi karo afka wax ma saarayo sakaraad baan ahay dhakhtarkii wuxuu igu yiri haddaadan wax cunin buu igu yiri waxaan ku dhiiga cad xataa uu ka dhamaaday wuxuu yiri eber baa tahay khabar aan ku soo qaaday maxaan ku dhahaayay tiyareed halka taala ma caawin karo markaan waan jiiri jiray ilaa masqusha tayar intaan jiido aan masqusha tago baan yaa Allah waxa faa'iido kaga bedelaa waan soo jiitaa haddana caanaha gurguuro naf ma hayo ma socon karo tabar male waxa ma cuno markii dambe waxaan go'aansaday si kastaba ha noqotay cuntada inaan cunaha aan soo mantagay haddaan doonee ima caawinayo waxba ima taro waxaan ku iri bishii afraad markaan galay aan sakaraadsanahay sidii u sakaraadsanahay wax walba horta toon iyo basal guriga mamnuuc bay ka yihiin wuxuu bilaabay cuntadan bila dhadhanka cunta aan yaa Allah ku kari kursi intaan ku fadhiisto baan ku karin jiray waxaan ku iri dhageysaan ku iri inaad iga tagto ood barta igaga dhaqaaqdo oo warqadayda isiiso iyo inaad baan ku iraad ilmaha yar ila hayso ood guriga joogtaan tabar ma hayo ma qabaysto waxaan ku injir baa iga gashay madaxayga ma meedhin haddaan meedho xataa gacmaha kor uma shaqayn karayo ma shalayn karayaan ku labada gacmood waxay ka daalayaan baan ku cududaha meesha iska galaan timaha ma shalaysan karayaan ku gacmaha kor uma qaadi karo oo gacan waliba meesheeda ku jabtay ma hayn karaan ku gacmihii timihii ma shalaysan karo timaha iga xiir
waa ninka waxa kaaga daran sakiin intuu la soo orday buu timihii munduq iga sii bac ku riday wuxuu iga dhigay dhukuro dhuusacad ma dheeraatay dhulkay leeftaa adkaatay Shakira dhukuro soo qor ku soc timihii muluq ma iga sii waa nafisay markuu timihii muluq iga sii maalinta uu arkay inaan waxoogaa rafaadkaygii intuu inan tiyaarada iga qaaday sankii intuu ku xidhay wax sankii uu ku xidhay ayuu waxaan ku idhi wuxuu sameeyey buulay of xaarka tayar maxaad siisa qormuuna markaasaa wuxuu yiri waa la soo wacaya telefoonkiisa dhalalo asxaabti maxaa kugu dhacda bay leeyihiin waxaan ku dhageyso anigoo shaqaysta oo fiican oo wax walba u baahan hooyadeen kaaga soo go'ay reerkayga amba hooyadii aabbahay baan kaaga soo go'ay buu yiri reerkeen kaaga yimid adee aabbaha buu dhintay hooyadaa baad iga soo go'day walaalka aan reerkayga oo dhan baan kaaga soo go'ay waana ku afka maxaa ka hela faruurtaada sidaa u cadeeyo sida biijo ku gashay markaasuu yiri faruurta de waa dhaxamahan iyo balaayadan iyo dabaylahan adna keentay maana ku kaalimtaadayna keen labadeena waan iskeenay dhageysaan ku yiri ama wareega habeenkii iska daawo shaqayso Shakira dhukuro ama habeenkii shaqayso oo ma aragtay shaqayso ama maalintii shaqayso baan ku yiri laakiin waa inaad caawisaa tabar ma hayo walaal dhageyso mid baan kuu sheegay rabay inaan kuu sheego magaaladan aad degantahay waa booran waan ka tagaya caasimadaan u socdaa caasimadaan u socdaa walaal macaani kowdha haddaad maaragtay intaan ku imanay isbuuci 2 mar baan ku imanay aad rabtidna ahlan haddaad rabina warqadaadii baan ku diyaariga adkaat markaasaan ku yiri warqadaadii baa diyaar iga ahaa oo maxaa waan yaabanahay sabab baan idhi maxaa dhacay maya wiir maya hadda wuxuu yiri ilmo yaraa kaloo sanad jira haddana uur baad iska yeelanaysaa waxaad ilmaha ka boobaysa maarag digaag baa tahay waqtiba kalgacayl maynaan wada qaadanin xataa maba jirto wili sariirta wareegta ma jirto waxa ma jiro waa marad cuuc iyo caacilamaad naas jaqsiri marad umushabi ahaad maba arag guurka laga sheekeeyo ninka naag baa diyaar u ah iyaduna biyaha kulul cabtaa oo isla garanayaan oo isku asxaabihiin baa diyaar u ah Shakira dhukuro waxa dhacday ninkii indhahayga shana buu igu dhaw walaal daaliq hal dalqa ayaan kugu furanahay oo diga xaraantinimaysan tahay qeyrkeena xalaal ugu tahay dharkiisana waa qaatay iriddu ka degay raxmadi furan iridda markuu ka degay naxdintii iyo waxaan ku idhi qaracankii wal cibaawe hay fay waan fadhiistay waa bandhididay waxaan noqday qof xabsi ku jiray oo kale intaan hotel halkan la hadlay madcam halkan baan cunto ka dalbaday cunto dalam guriga iga wari hagaaji daahi bedel charity iska gogol fadhigi iska hagaaji tayada yaradu qabeen timihii u duuduub gees uga xidh filan shido waan dhukuranahay timihii baan tayar duuduubaya waan ka raystayba waxaan noqdayba alxamdulilah waan raystay cidna uma sheegan saaxiib malihi asxaabta ma nacbay horta ma ogtahay anigu waxaan aaminsanahay dhaqan ah 100 aniga waxaan aaminsanahay 100 rag haday gurigeyga yimaadaan oo ma aragtay ayaa iga sharaf badan inta 4 naagood aan saaxiib la noqon lahaa ninkan waa la sheegi maayo caayi maayo xaman maayo oo uma badhalan baxmaatada rago laakiin dumar xan iyo isku dir iyo inay ku kala dilaan mooye ma garan 4 wiil xaafad degan oo gaadhile 4 waxaan u baahnay adeeg oo iisoo adeegan 4 iisoo adeegan waxaan uga baahanahay waxa dhacday inaan raggaas aan wuxuu dirsada qofkaan u baahanahay adeer xaamilaan noqday ninkii maalintiiba iigu dambeysay waxaan ku yiri bishii 9aad markaan galay wiil iyo gabar isqabo jaarna habeen uga tagay inantayda dhakhtarkan tagay habeen baan ku jir subaxii baan qaymid gabadhii way ila joogtay 2 isbuuc fay waxaan ku yiri ilmahayga soo korsaday ilmahayga midna ii tahay 3 jir midna ii tahay marka ii tahay maartay 2 jir oo nolosha isku kay toosan luuqadii wadanka bartay ninkii oo kood kasta laga garaacay oo dakhran oo naa ka dacwanayaan Facebook arka inta la jabiyay gafuur la jabiyay gees dhan jaban tigid baan goostay hooyada tag wadankii baan ka tagay hooyadii oo tagay gurigii baan tagay hooyadii ana 2 ilmood wata hooyadii baan la soo joogay muddo bil iyo bara waan iska soo noqday danahaga iska raacday ninkii oo boorso wata iridii soo garaacay anu gurigu maan deganahay ninkii markuu iridii soo garaacay marka waxaan la siiyay sharciga Janeefaan la siiyay oo waxaan la siiyay 5 sano baan isaga haysanaa 5 sano marka
isagii dawaakan ma shaqaysta noqday suuqa gala ciyaar suuq noqday ninkii irida gow marka baasha yar laga eegay iridankayga waaba ninkii oo boorso gacanta ku wata waxaan yaabay waxaan ku fikiray ma ka furtaa ma iska daysaa ma ka furtaa ma iska daysaa ma ka furtaa ma iska daysaa amba araxan iima gelin moogtahay shalay amba araxan iima gelin wiilkii ma xusataa jaarka iyo caawin jiray markaan dhalay caawiyey wiilkii baan telefoon u diray waxaan ku yidhi walaal macaano ii imow wiilkii baa ii yimid wiilkii markuu ii yimid waxaan ku yidhi irida ninkii baa taagan kala tegayn wuxuu rabana ma aqaano kaale wiilkii baa ii yimid gurigu isagoo sidii u taagan iridaan ka furay wiilkii iyo kana irida iskula yimid wiilkana hore isu garanayeen beriga hore jaar waa aniga wada ahayn markaasaan ku yidhi uu soo galay uu fadhiistayo markiiba rajactu baan ku yidhi markaan jika tegay rajactu baan ku yidhi rajactuga adii soo sheegin hadii odhanaysa rajactu waxaad soo sheegaysa ma aqaanay maxaad soo doontay reerkayga ilmahayga baan rabaa halkan faruurta korkooda malaha naag baa dhalo ku ilowda waa ka daqran yahay waa tolantahay halkan kore halkan sujuudda meel baa bararsan oo ku dhacday sida uu u yaalo foolxumada balanbalka hoogga ninkaa haystiya rafaadka waad yaabaysaa soo xireeyay uun hay odhan hadda jabkaaguba hadduu bilowday marka ma soo xareynaysaa ninkaa Shakiiri mise waxay odhan doontaa siduu shalay uga dhaqaaqay soco waay haddaan dumar aqaano waa ninkaygii bay odhan doontaa waa ninkaygii yes macsan kor haa waxaan ku yidhi dhageysaan ku yidhi waxaan kugu soo xareeyo horta kaama muuqdaan ku yidhi maxaa haysataa maxaad qabsatay aan ku soo celiye maxaa qabsataan dhe maxaa haysataa wuxuu yidhi waxaan idhi maxaad shaqaystaa maxaa bangi kugu jira maxaad haysataa maxaad nolol samaysatay laysan ma qaadatay hoos buu u foorsaday waxaan ku yidhi inaan ku xaaladada la socon baad moodaysaa Facebook baan kugu arkaan ku yidhi naag baa ku dakhartay waa lagu dakray waad rafaaday laysan maadan qaadin cabitaan baad bilowday kan oohin buu qabsaday halkii lugaha inuu igu soo boodo horta taaban baan ku yidhi ajnabi baan kala nahay waxaan ku yidhi ajnabi baan kala nahay korkayga ma taaban kartid baan ku yidhi halkaa fadhiiso inantaa yar anoo walacad iga tagtay baan ku yidhi intaa timaa iga dhukurtay anoo walacad iga tagtay waxna iimaa tarin baan ku yidhi meelaan ku dhalan iyo meelaan ku uraystay ma aadan ogeyn baan ku yidhi ilmahana anu maana dhalin adaa iga dhaday baan ku yidhi waxaad magafa ku cabi weyday baad halkan ku bilowday baa idhi waxaan ku yidhi aniga adin noqosho ma jirto waxaan ku siinayaa 2 sano jaanisa 2 sano noloshaada haddaad kusoo dhisto ood noqoto nin ah anu nin aan adahayn guursamaaye noloshaada soo dhis baan ku yidhi kor isku soo qaad nin raga iska dhig kadib ayaan maxaan ku yidhi anigaad wada hadli doonaa wiilkii baa ku yidhi waxaa jira wiilal halkana oo degan iskaabulaa la deg ninkii wuxuu bilaabay inuu iskaabula la dego masaajidka safka hore ku tukado shaqo uu raadsado laysan uu qaato noloshiisa uu dhisto shaqo helo noo soo adeego waxay caruurta u baahan tahay adduunka keen adeeg keen ilmaha iga qaad soo wareeji ninka saas u duulaya gaari dayna qaado half dhiib waxaan ku yidhi saas wuxuu iska dhigay kaale iska arag waxaan ku yidhi muddo 1 sano iyo bar gudahood ninka wuxuu iska dhigay kaale waxaan ku yidhi marka anigu de waxaan u xiisay moogtahay inaan kakiilay balwadii ma daay daadaa wuu daayey marka anigu marka waxaan ku weydiiyey Shakiira markaad wadankii tagtay islaantii hooyadiisa ma u tagtay baaya u tagtay la dhufeed markaad wadanka timaadeen seebaad reerihiisa ugu sheegteen inaad isguursateen reerihiidiin ogaadeen uga dhaadhiciseen reerihii way ogaadeen laakiin danii hooyadii kamale muraad hooyadii beri bay ka tiri isaga beri bay kaga tahay bay tiri way dayrisay kulli reerkooda way u bartay balwada hooyadii markay isku dhaceen hooyadii dayrisay raggu markay stress dareemaan inta badan noloshay ka dhacaan taas way balwada u bilaabay waxaa dhacday markaas in uu hufiya bab uu yidhi kolaha wuxuu yidhi waxa iga qoslaysa wuxuu yidhi reerkii waan waaye maxaa iga gala ciyaal saas wiil markuu soo noqday hooyadii ma saamix reerkooda dhamma saamix kulli col bay ka qaateen anigu hooyadii lacag baan u bilaabay hooyadii waa heshiinay waan igu tagayba
ninkii markuu kaa iska arag noqday anigu marka xaasidad maan ahayn oo kumaan odhanin eeg dumar waxaa jira ragga la ficiltamo oo isdhaha lacagta ka dhameeyo culaan curi ka dhigo kan igad ma odhanin sariirtayadii way noo taala guriga sidii noogu yaara noogu nadiifsan yahay dadaad reero nadiif aad tahay ood gurigaaga nadiifsato marka u horeysaba kaama xumaanay mogta waxaan ku yidhi labada gabdhoodna waxaan baray inay qolkooda iska seexdaan cidla anuma kale keligiiba qolka iska seexanayay inay wax u baahdaan ama ilma xanuunsado aniga hoosta iga soo galmay qolkooda iska seexdaan habeenka dambaan telefoon diray waxaan ku yidhi diyaar baan hadda ku ahay markaas wuxuu yidhi farxadayda lama soo koobi karo ma soo qaata stage baan ku yidhi waxba ha soo qaadanin waxaan soo iibsanaynaa laba neef wareey Shakira waa diyaar la socda belasha cidda qab saashatana garaaca waay laba neef aariya ayaan soo iibsanaynaa baan ku yidhi marka dhowr qof aan isku fiicanay baa jira sidaada banaana dadka jaarka haddaadan dhex gelgelin waxba aadan ku darsanin oo aad ammaan siiso halka marada wax uga baahato dadka isku fiicnaanaysaan inta qof aan isku fiicnayn baan u sheegay laba neef aariya ducadii baa la sameeyey waan ducaysanay maasha allah tabaarakallah markaan ducaysanay sheekhi masaajidkii waxaan ku yidhi shuhuudadii baa yimid meherkana loo sameeyey waxaan ku yidhi aniga gabadh yar oo xaafadda dadka cilmaha cidiyaa ka geegeeri jirtay baa waxoogaa ceelaan igu dheeldheeshay gurigii baan ibiday ciyaalkii yaraa oo faraxsan wuu noo yimid xaajigii waxaan ku yidhi cunto yar baan usii diyaarinay gurigooda marka hore waa la dharagsanaa saakabe duhurka cunto laga dhargay wuu yimidoo waxaan ka sheekaysan inta sag firsan aniga isagu jacaylkeygii marigaan isjeclayn ani jacaylka waa laiga daraya caar naag baa tihiina maxaan ka fikirayaa jacayl iyo again iyo waxaad ka fikiraysaa naagtii ma soo furay mise uu qaba alla wallaahi bilaa talay I wanna know intuu iga maqnaa wuxuu sameeyey naagtii uu guursaday ma furay weli ma isqabaan ma shidnayd ani ma iga qurux badnayd jirkeeda si u yaalay meelka dhaadheerayd horaan u dheerayd jeerikaamadu jilbaha ma marayeen caloosha laba jaranjaro ma ku lahayd timuhu ma adkaayeen ilkaha maqaniinka ku fiicneed dhunkashada slow kista may taqaani waxaan ku more information baa u baahanahay I wanna know everything wuxuu soo sameeyey waxaan ku yidhi ABCD da ma dhigato weliga ha maxaan ABCD u dhigo AB kasoo bilow baan ku yidhi waxaan ku yidhi A to Z sheekada dhan buu iga dultuuray markuu iiga sheego kelmad xun igu yidhahdo way quurin jirtay waa qosla dhag wallaahi dhe saas beauty mahasalka ma gaari jirin ood bay ahaayeen dhag farxad aniga waxba mayna aqoon adu reer magaal baatay adaa ka qurux badan waxa dhacday markuu sheekadii iga dhamaystiray oo waxaan ku yidhi sheekadii aan dhamaystirnayn hawlahayga iska galay ayaa wuxuu igu yidhi waxaan go'aansaday inaan reerkayga u tago oon ku idhaahdo walaali macaane dee hooyaday macaan ma raba inay dhimato aanan raalliga ahayn ma raba inay dhimato naagta ninku ma furina weyse soo dileen wuu kasoo tegay iimana sheegaya adkaata wuu kasoo tegay ninka wuu kasoo tegay mua furin intuu naga maqnaa gabadhna way u dhashay gabadha xataa naguma sheegan ninkan marka qaybta gabdhaha shaqaysay isagoo qaybta gabdhaha muu ka garaaca dumarka waxa dhacday in allahu mustacaan aan ku idhi haddaad u tegayso hooyadaa dee dhibaato male aad bay u fiican tahay dee u tag hooyada mushkilad u maarka haddaa hooyadaa u tagto waayahay wuu baxay tigid buu goostay hooyadiisuu aaday hooyadii markuu aaday u sheegay inuu caruur dhalay uu nolosha dhan uga soo sheekeeyey inaan waxa dhan uu de uga sheekeeyey inuu jecel yahay iga maarmin hooyadii waxay samaysay hooyadii buu kaxeeyey iyo hooyadii buu kaxeeyey isagoon ii sheegin labada islaamood buu isu geeyey waa iska taqaanada dumar waa lisa casuumay waa lisa cafiyey cafiye musaamax wuu kasoo tegay hadiyado badan iyo muuqmad bay hooyadiina iisoo dhiibtay hooyadiina iisoo dhiibtay hooyadii dhalba iisoo dhiibtay wuu soo noqday naagtii oo raadinaysa ninkii jaaniya cidhib meeluu dhigay ay weyda raadinaysa baa tuulihii timid ay maqashay naagta hore degan aniga deganeyd adkaat naagta raadinaysaa timid reeraha deriska u tagtay wala nin saaysaasa ninkaas waxa la dhaha Afrika ku jira gabadhaasna way ku noqday caruur haysay ku noqday suuq noqon karaan way qabaaye waan soo kala xanaaqay inuu qabaa naagta indhadeegeedii irida buubub intay soo sii irida aan ka furay waaba naagta marka wajigeeda ma arag waa tay igu tiri
maxaan ku dhahdaa soomatid bay ku tiri naagtii hebel haa dog way igu booday yaa way igu booday adkaatay markaa qiyaastii mafeedhahaagay tirsatay maxay tirsan iridaan ka furasoo naagtii hebel matiid way igu booday dhab intay i siisay oy sabaaxad i qabatay oy feedhaha iga garaacday oy waxaan kuri i tuntay oy wejiga iga xagxagatay ayaan baryay walaal iga kac maxaad ahayd walaal maxaad igu dilaysaa walaal maxaad igu dilaysaa nayaa ninka maxaad ugu noqotay walaal iga kac walaal horta iga kac naqaska igu dhiga walaal iga kac naftii say ii dilaysa naftii waxaan ku idhi shakiira fulayad soo qora oo ma igu qoslaysaa weli faadamoy naag baa idisoo igu fadhiisatay kuyaa aan baryaya waay ku soco walaal iga kac walaal iga kac walaal iga kac maxaad walaal iga kac naqaska igu dhigay wallaahi waa dhagay hadda igu dhagaroobin walaal waa lagu xidhayaa meesha jeel baad ku uraysaa istilaa baryadan meesha qabanta shakiiray walaal igu dhagaroobin walaal igu dhagaroobin aakhira waa lagu cadaabaya igu dhagaroobin walaal igu dhagaroobin bay maraysaa walaal igu dhagaroobin ninka kaxaysa walaal igu dhagaroobin walaal igu dhagaroobin iga kac waa ta waxaan ku iga kac iga kacday tirnaya saamirku igu yimaad hadood ninkaasoo dambe haddaan kugu arkay ifur baad odhanaysa markuu yimaad walaal haddaba hay fur anaa furayo dalaqtu anaaba furayo walaal iga kac way iga kacday way tagtay iridda gaari baa u taagan oo ku sugay way iga tagtay anoo meel kasta ka bararsan waxaan ku ninka baan telefoon u diray waxaan ku naagta baa timid guriga way i dishay naagta soomaadan furin waxaad yeertir waan furay oohintayda lama oga jaarka o dhan baan u yeedhay waxaan ku idhi boolis baa yimid booliska waxaan ku wuxuu iga qoray sidii lai galay booliska markaan uga sheekeeyey naagta way dishaan dhulka igu soo gashay wayna i riftay ma aqaan xataa magaceedii laakiin ninkan oo maarata anana caruurta u dhalay ayay ahayd yaa guursaday waxay degan tahay ma garanay isagaa garanay isagiina ma joogo afrika ku jira way i dishay jirkayga oo dhan saas wixii oo dhan baa layga qorqoray way isa sawireen de waan wada barbarsanaysa ii gashay ninkii booliska waxaan ku yaa idin kala qabtay buuri anaa baryay baan ku idhi ninkii booliska anoo arka wejigiisa qosol baa ku qornaa wejigiisa maaragta si qof qosol de qofaad iska bariday iska celi xataa maxaan iska celiya adeer waxaan ku feedhaa iga garaacday alcumuum ninkii baa yimid ninkii markuu yimid naagta magaceedii waxeedii dhan buu sheegay afarteedii nambar waxeedii oo dhan buu sheegay bariis maad cuni jirin miya adigu na horta anigu xuus baan ahaa weligeyba waay xuus baan ahaa aniga kula hadda kahor moobeelka markaan wadankii joogay moobeelka habeenkii meelaan ku qarsadaan waay feedhahaygu waa anu xuus baan ahay oo sawdigii ragga tumi jiray xiniyaha ka saari jiray waxay sanbacnimadaad low 5 jir baan ahaa markaa dee waan yaraa waxaan ku idhi xuus baan ahay xataa waxaan ku idhi feedho malihi jeebada malihi anigoo dhan waxaan ahay hal baan ahay hal eber waxba ma haysto naagtana waa naag isku timato iga weyna xuus waa qof caato ahoo maraana xuus waxba hilib iyo laftoona lahayn naagta waxaan ku idhi feedhaha iga tirsatay kaale hablaha marka la garaaco maxaa daan waa la iga weynaa ku soco dee way iga weynayd hey ku soco weyniba igu garaacday way iga weynayd way gaaday waay shakira xuus baa laysa way ka weynayd timad gaata way ka weynayd way ka weynayd haa way naga weynayd naagta way naga weynayd ku soco daa weyni baa laygu dilay sheerta asxaabay sheerta 1500 inoo gaarsiiya shaashadan inoo garaaca shaashada 400 inoo xidha waan istalayay sidii xalay garaaca shaashada gacan weyn haa shaashada gacan weyn saara waxa dhacday allah musta'an inay hufiya bab intaan idhi oo waxaan ku idhi aan gabadh ku walaal maxaa iskaga biyo xagtimaha ay tir meesha laga xagta doorfiid saar waxay tiri kan saar kan ku bi kan way iga bedelay ninkii waxaan ku idhi dhageyso way furay dhaaftay mareen naagtan baan ku idhi adeer meelaad tegaysid mara way iska iman kartaa anyway iridaha furin buu igu yidhi way iska iman kartaa baan ku idhi marar buu idili kartaa banaanka markaan u baxataa geesaan iska eegi jira inay kugu soo noqotaad ka cabsanay haa dee maxaa kaliya igala baxday adkaatay markaa qiyaastii caloosha hooyadaa bay kugu dili jirtay xagee igu aragtay caloosha hooyada xagee ku aragtay naagtan waa naag xoog badan naagtay ii soo badheedha i riftay waxa bacday ninka waxaan ku idhi naagti wuu la hadlay wuu furay naagta ninkan soo dishay weeye ee wejigan ka jeexda naagtu naag naxda maaha ninkan bay hadda kahor soo garaacday ee qaba
shay way soo garaacday iyada maxaad ka isagii baa igu sugaysaa sheekeeyey wuxuu igu yidhi see wuxuu dhacay habeenkii markaan maaragtay after again and again reere qosol baan sariirtaas ku wareysanay uu qoslay dhaqo wuxuu yidhi maxay kugu samaysay waxaan ku yidhi iridda intaan ka furay unbay igu tiri naagtii hebel ma tahay haa waxaan ku yidhi intay beerka ay qabato bay haraati igala daashayo xoqada igu kiciso samabka iga garaacdayo saas ay gasho waan bariyay maxaad ku tiri baan alla walaal ha igu dhagaroobin walaal ha igu dhagaroobin walaal ha igu dhagaroobin waa ka igu yidhi aninta igu dhigtay makaaga sheekeeyaa adkaad waa ka yidhi anoo jiifa buri oo hurda inta iyadii gabadheedu busta igu laabeen buri iyadii gabadheedu bay bustaha korkiisa igala dhacaysa usha guriga lagu xaaqo adkaad web 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 usha meelna igama duweyn buu yidhi waxaan ka ilaashaday un buu yidhi meeshan aad hadda kor raftigaa iga bururisay baan ka ilaashaday inta kaba iga garaacday buri dhiigga markay dhiigga aragtay bay tiri buri gabadheed alhooya dhiig alhooya dhiig meel kastaan ka dakranay waxay igu tiri dhakhtar ma tegi kartid meesha dakhrantay buri kooloon bay ku dhajisay iyadaa isku imanaysa igu tiri buri sharaab dhakhtar ma tegaysid cadar bay igaga shubtay buri meeshii cadar way isu geysay koolona way saartay carbax wallaahi bilaahi naagtaas naag bay ku banaanay talo macnaa dhalay waxaan u malaynaya anaa dhalay waayo way iga luntay ku soco dee waxaan ku iri ani isagaas ku sheekay naagtay u dishay way dishay boqol jeer bay dishay buu yidhi naagtan dilkaa kasoo horeeya marka labadeenu ba iskama celin karna buu yidhi kowdha oo naagta maalin wax dilaysa waxaan sameynaynaa buu yidhi inaan gurigan ka guurna aan degannahay iyo naagta inaan ku noqdo isbuuci 2 cisho la soo joogo labadaa midooda adkaad dayna rar balaa ila soo joogayna rar waxaan ku yidhi tani meel kasta tagto way kugu soo helaysaa adareyskay kugu raadine 2 cisho la soo joog 2 cisho la soo joog baan idhi fulinima intaas ka ahay haa markaasuu yidhi meel lama soo joogayo ninkan way soo gubtay inaanu ku noqonin baan ogahay way soo ololisay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم fulinima iyo doqonnimo isku darsatay waxaan ku yidhi waa ka yidhi kuma noqonayno buu yidhi reerkeenaas kuma noqonayo adigu booliska warqadii booliska u tagtay naagti waxaan ku yidhi sheekada way dheeraatay maxkamada wax horena waa laga geeyay maxkamado sheekada way adkaatay tol baa noo yimid tol baana dhex galay iska taqaanaa tol markii dambe waxaa la yidhi tol baa lagu dhameeyay arrinta waa la dhex galay booliska waxaa la fasax baatiin sidaa lagu fasaxay ninka wuxuu yidhi naagta gabadha bay ii haysaa maana ka hadli kara gabadheeda adeer haddaan gabadheeda afaaraheeda galintay timaada siidhiga iyo waxaan ku yidhi siidhiga igu dhegeysaa miyaan ka hadli karaa gabadheeda hadda fulanima iga tahay waa caadi de hadday kugu dhasho labada qof markaysa guursa wax waa la isku dhalaay waa caadi 2 qof hadday isguursadaan wax waa la isu dhalaa ileen waa caadi dhashu waa caadi hadda kuma faraxsana dhashan naf bay iga keenaysaa adeer dhashu waa caadi baan ku waa la isu dhalaa ninka intuu yaabay oo waxaan ku idhi uu ama kaagay oo irkiisa xisday waxaan fureeyadii maxay ahayd waati berigaad yarad ku dishay maxay tahay waxaan fureeyada naa waxaan ku idhi xaafadii aan deganaa oo dhan gabdhihii saasay u qoslaan dheeq ilintaa ka dhammaatay uma sheegin xaafadda inay iyadu dishay anaa ku idhi anaa dili naamaad waa alan tahay fulaynimadii beebaad ku tartatay iyo doqonnimadii waaye sanbacnimadii iyo fulaynimadii shageeda maanta beebaad ku tartatay waxaan ku idhi anaa dilay saan uga sheekeeyaa markaan iskuulka isugu tagnay iskuulka wax lagu barto intaan qabtay oo markay ii soo gashay aan ku idhi nayaa riddaan guriga u xidhay aan ku bilamiyey baan ku idhi meel gabadhii walaa igu dhigaroobi rabadaan karin saasaan uga soo galay way ii saxeexdayo waxa dhiig baan kaga keenay xaafadda dhambe ka ninkiina waan ka furtay intii ani igu samaysan iyadu ku rogay soo waxaan ku yidhi lama wada joogo la is arki maayo beentoo xagee la isku arka naagtu caasimad bay ka timid haja naagtu caasimad bay ka timid waa degana meeshan xaafadii waxay dhahay naagtan iskula hadlina waa jirri waa mooryaan waa bacays ya allow alle baan idhi allow alle hadda xaaladan ku sugan imay xaalad kale baan dadka la wadaagaya allow alle yaa u sheegaan idhi in beerka layga tumayo baad layga qaadon idhi ha igu dhagaroobin walaa laygu dhagaroobin aakhara faras yaanan kaa dhigan in laygaga siiyey maba ogaba yaa u sheegaya ninkii aniga isagii waxaan ku idhi waan isla adigu reerkii waan heshiinay reerihii oo dhan
waanu baxnay wadankii baan tagnay wadankii baan guri ka dhisanay islaantii baan soo salaamay sodohday ahayd waxoogaa yar hadiyad hoo ku go-aan waa u geeyey hooyaday macaan baan geeyey xajka waan soo xajisiiyey hooyaday macaan qalbi u roon qiimo badan waan soo xajisiiyey laakiin xagga kale xogaasan bacad fulaya ka tahay way ku socod adaa jagta ka qaba Shakira lagugu dhufay dee haniya miyaan odhan karaa anaa laydil xaafadda hodha way soo weerarayaan saasaan uga soo gaybaan ku dhina agtaada miyaad waaranta anaa jagta layga sarhay igu dhagaroobin walaal baa layga siiyey hooyaday macaan baa xajka geeyey hooyaday macaan dahab baan u gaday dahab qoorta hooyaday laacaysa ilaa aan ka arka qalbigu ii degi waa taqam dahaban hooyaday kareenka u mari kan u mari hooyaday kidna fitamiina uga sii qaad jarmalka hooyaday macaan saa dhabteeda uga seex hooyaday qalbi hooyaday ninka hooyaday anaa jeclaysiiyey hooyadiis saan hooyaday u lahaa hooyaday waxa islaanta isaga hooyadiis in yaroo hadiyadaan u geeyey isaga ha u geystay isagaa dhalin laakiin aniga hooyaday macaan number 1 noloshaydii oo dhan number 1 gabadheedana hooyaday baan ugu magac daray hooyaday macaan naagtii waan ka tagnay cabsi baan waxoogaa u yar maqanaa cabsida iga soo baday isboorti ma galaa talow asxaabi meelo tirinaysiin isboorti ma galaayo feerka ma bartaa may wadnaha weeyaan ma wadnaha weeyaan haa bahashu waa wadna u baahan thank you Bashiir walaalood ku maasanta hadiyadaada garan maayo ma wadnaha maxaan ka aqaan feer baa moodayay alcumuum ani xaaji waan isku faraxsanahay ma sha Allah tabarakallah labadayda caruurtaaban haystaa baaye macaan maxdintii naagtii ay dishay ilmo uur kalaba ma qaadin dilkii barigiisa naagtu ii gashay malaha qaybtii waxma iga tuntay ilaan dhabar ba ii riday waa tii caloosha igaga fadhiisatay qaybta ugxama iga tuntaa inta waxa wixii ka dambeeyay waxaan ku wada qaniyo nooc kasta tii Chinese kunja ayana mastaan hindi mary americano nooc walba sameeyna ma jirto ka malafan ma fahanti si walba niri walaal qaybta ilmaha iga tuntay qaybta ilmaha sida ii tumaysa qaybta ilmaha laga dhaliyay iga tuntay sheekada halkaas ay ku dhamaatay waxaan ku labada caruurtaaban haysanaa alxamdulilah rabbil caalamiin family waa isku faraxsan yihiin hooyaday macaan waan jeclahay ilaaf hooyooyinka Soomaaliyeed ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'ala hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan inuu xafido inta nool inta dhimatana inuu ilaahay u naxariisto subxaanahu wa ta'ala inagana ilaahay nooga daba naxariisto ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbigeena burcad isu mariyo kuwii jannada ku kulmaan lahayn naga dhigo allahay noo dambi dhaafo waan idin jecelahay asxaabteena khayr allah idin siiyo barakallahu fiikum rabadaan